أنا كفايديسنا فرصة نقالة أدنى سيسي حنسو حشمت لي أن كرامل أن كوس ودوين أنا أكو هذا مجا حفيزك كارتج أسكرين تعرض هي حقوق أدنها وزارة الجاشان لجا أبندولها يعني معلمي هو رين ملصق شقي تيمان تنو حنوب بالله توبركي أن كوش شجني سركي شيء حقوق دلك سوماليات iyo odayaalka dhaqanka iyo maxaa la yahay civil society-ga intaas way ka qayb qaadan doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo marka waxaan si xushmad leh iyo karaamo leh aan kugu soo dhaweynayna aan ka codsanayna inaan naga aqbashid inaan shirkii noo furtid waxaan maanta isugu yeernay warbaahinta in aan uga warbixino xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka محمد بول oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka waxaa la xiray 4 April 2020 habeenkii fiidnimo maray saacada 9:00 ilaa iyo hadda wasaaradda lama soo wadaagin sababta loo xiray waxaana socdo baaritaan badan wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xer ilaaliyaha qaranka hanti dhowrka iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso waxaan diyaar u wadanahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walba la soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso waa ku mahadsan yihiin walaalahana oo ciidanka dhisaya oo waxyaalaha ka dhex raadinaya aan hadda ciidamada aan ku fiicnaan iyo meesha waxa la yiraahdo xuquuqda aadanaha aan ku fiicnaan marka seminaarkan oo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno aadna u wanaagsan 3 maalmoodna noo socod doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay meel hadii oo joogo oo amniyahan oo u hayo in uu dad shacabka oo soo jiito oo shacabku ogolaadaan ciidanka oo isku dhex jiraan